soo dhawaada gabadhan yarta uur ee leedahay mana rabto arrintan in hooyadeed ogaato maryo badan intay soo qaadatay caloosha ku xiratay laakiin sirwaalkii uu xirmi waayay xogaa fikirkiisana qorshe ku soo dhacay laabtoobkeeda intay soo qaadatay waxay ku qoraysaa sidee uurka la isaga baabiyaa kadib daawooyin u soo baxayo waxay ku fikiraysaa inay hooyadeed weydiisato lacag ay buuq ku gadato markii ay sidana ay daawadan ku soo gadato isla markaas waxay maqlaysaa hooyadeed dhinaceeda u soo socoto magaceeda ku qaylinayso albaabka markay ka furto waxay tusinaysaa inay u soo gaday dhar ay ku riyo jirto inay hal mar la gashato way u dhiibtay si ay isugu tijaabiso laakiin midaan walwalka weyn haysta arrintan intay u timaadee waxay ku dhehaysaa waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin aan waqti dheer ka qarqarinay iyadoo aan hadalkii u sheeginay suuxday hooyadu gabadheeda sidii u soo wadana waxay keentay dhakhtarka waxay weydiinayeen gabadheedu ma xanuunsan tahay maxaa ku dhacay hal mar sidii u joogtayba dhulka ku dhacday dhakhtarku wuxuu ku dhahaa xanuunka ka sheekeynaysid maxaa waaye gabadhaada uur ee leedahay waana 6 bilood kadib midaan hadalka marka ay maqasho maalinay joogtay habeen ku noqon rabtay iyaduna markeeda way soo xirabtay xogaa ay yaabaneed midaan oo sariirteeda iska jiiftay inta u timaaday hal xabo dharbaxsha u dhiibay iyadoo si saa'id ugu qaylinaysay waxay weydiinayeen dhakhtarku hadalku sheegay maxaa waaye iyo uurka waxay taagan tahay arrinta marar badan ay isku dayay inaan kala sheekaysto laakiin adigu markii aan ku sheeg magaba waa iga celinaysay sidaas darteed waxaan go'aansaday mar dambe inaan arrintan kala sheekaysan ugu dambeyn arrinta sideedaba u dhaafay buuqoodu saa'id markii uu noqdo dhakhtarku midaan intuu yimaado wuxuu dhahaa soo bax wax yar inuu kula hadlaa rabaaye isbuuc kadibna gurigooda ku soo laabteen oo isbitaalka way ka soo tageen laakiin midaan weli maysan dhalin midaan hooyadeeda waxay ku dhehaysaa haddii ay arrinta ku niyad jabisay oo aad rabtid inaad guriga kaga tago caadi waaye laakiin midaan maadaama ay hooyo tahay waxay u sheegaysaa arrintan inaysan marnaba niyadeeda ku soo dhicin bilooyin kadib midii yareed way dhashay kuwaana waxay isku diyaareen inay dhakhtarka aadaan laakiin hal mar albaabka lagu soo gargaraacay markii albaabka furto wuxuu noqonaa midkoo sigaar cabayo wuxuu taagan yahay waxaan rabaa inaan wato cunug yarka dhalay iyo xaaskeyga laakiin hooyadu waxay ku dhehaysaa aniga hal mar xitaa ma ku arkin markii gabadheeda uurka lahayd wuxuu u sheegaa inuu ugu dambeyn u yimaaday uuna rabo inuu qaado mas-uuliyadda xaaskiisa iyo cunugooda yarka haddana uu rabo inuu wato midaan yar waxay taagan tahay caadi waaye hadda hadduu yimaado diyaar waxa u nahna inaan raacno hooyadu gabadheeda waxay ku dhehaysaa arrinta ma ka joogtid midkaan cabto inuu eegay muujidido laakiin ugu dambeyn way u ogolaatay markay aragtay midaan inaad hadal dhanka maqlaynin kadib intay is soo raaceen wuxuu keenay meeshaan kor dhan ka furan wuxuu ku dhahaa hadda kadib meeshaan waa seexad doontaa gurigaaga waaye waxay u sheegaysaa inay hooyadeed u dirayso locationka meesha ay joogto sida ay ugu timaado markii ay rabto laakiin wuxuu ku dhahaa aniga mariba hooyada buuqeeda inay gurigayga iga barato ee keen taleefanka hadda kadib taleefon isticmaali doontid intuu hore u soo wado wuxuu keenay meel uu hore u seexan jiray oo isugu jirta jiko iyo meesha dharka lagu dhaqo wuxuu taagan yahay meeshaan anigaa seexan jiray laakiin hadda kadib idinka idiin deysta waa seexan kartiin waxay weydiiday oo hadda ma waxaad rabtaa gabadhaada yarta inay meeshaan seexato kulaha war aniga markii hore derbiyada seexan jiray haddana iyadoo hadda halkaan seexato wax dhan mu arkayso markii uu ka tagay gabadheeda waxay ku dhahdaa ma raba inaan meeshaan seexato waxaan rabaa inaan ku noqdo hooyo wanaagsan sidii hooyadii aniga ii tahay ugu dambeynna waxay qaadatay go'aan inay meesha dhan ba isaga tagto guriga hooyadeed markii ay timaado marar badan albaabka garaacda laakiin qof dhan ma ka furaayo waxay u maleynayday inay hooyadeed albaabka ku dhagaysanayso laakiin iyadoo bannaankii ku maqneed waxayna ku faraxday inay hooyadeed mar kale dib ugu soo laabatay muuqaalkuna intaas oo ahay hadda halkaas soo gaartay like noo saar soo dhawaada gabadhan dabaq dhisma ka socda intay timaaday si lama filaan waxay u arkaysaa ninkeedoo shaqaale ka ah waxay weydiinayeen meesha maxaa ka sameynay intuu u sheegay midaan inay shaqadiisa tahay oo hadda shaqaysanayo iyada waxay weydiinaa waxay meesha ka sameynaydo waxay bilaabaysaa inay been u sheegtay iyadoo dhehaysa meeshan waxaa u imaaday inaan la kulmo ninka aan u shaqeeyo kadib anagu waxaan ogaanaynaa ninkan inuu maalin walba cunugiisa hore u soo qaato maadaama ay xaaskiisu ku dhahda anigu shaqaan aadaa waxay u imaanaysaa ninkan oo ah injineerka dabaqan dhisaya maadaama ay si qarsoodi ula socoto iyadoo la qabo isla markaas cunugii yaraay oo ay dhaleen isagoo koronto ku dhigi raba aabiis arka kadib wuxuu sameeyey wax walba oo aaba cunugiisa u sameey laakiin isagay korontada ku dhigtay wuuna miyir daboolmay injineerku meesha uu isaga ordasay oo shaqaalihiisa u badbaadsado laakiin midaan waxay u muuqataa inay ku faraxsantahay wax walba meesha ka dhacay wax yar kadib ambalaas meesha soo gaartay ninkan isbitaalka loo soo qaaday kadib injineerku midaan wuxuu u sheegay inuu la yaaban yahay sababta cunuga yarka kaliis meelaha u wareegay waxay taagan tahay shaqaalayaasha ayaantan jira ayaga dhan waa waaliyiin ciyaalkooda yarka u soo qaadanayaan ka war meelaha ka shaqaynayaan kadib cunugii yarka ayuu iyada ku wareejiyay si uu la soo kulmo dhakhtarka midkii shaqaalahayna waa kana isagoo meeshan jiifay intay soo baxday qolkiisa ugu soo galay markii ay aragtay inuu hurdo waxay bilaabaysaa inay aflagaadiido waxay ku dhehaysaa ninkii shaqaalaha ayuu gacmihiisa ku shaqaysan jiray hadda kadib muxuu ku shaqaysan doonaa gacmihiisa waa kay laabeene kadib waxay bilaabaysaa inay soo qaadato cirbadda suuxinta oo agtiisa taallay waxay rabtaa inay ku durta si uusan saaxiibkeed cusub ugu sheegin inay iyada xaaskiisa tahay laakiin isla markaas cunugeedii yaraa ee ka dhici rabay cirbadiina isaga dushiisa saartay laakiin midkan muusan hurdeen wuu soo jeeday wax walba ay ku dheedana wuu maqlaayay cirbadii suuxdinta markii ay meesha ka weyday isla markaas isagu iyadiyo duray ma aqaani sababtay cunugiisa yarka ahay intuu xambaarsado isbitaalka dhan iska baxsaday isagoo meesha marayo niyada wuxuu iska dhahaa waxaan oo dhan aniga maxay igu dhacayaan hadda kadib xaaskeygi waayay gacmihi aan ku shaqaysan lahayna waa kuwan qilqilay ku jiraan dhinaca kale midkaan waqti dheer kadib wuxuu ku guuleystay inuu soo kiciyay midii saaxiibtiisa ahayd oo khiyaanada badneed waxay ku dhehaysaa nin noocaas oo kale shaqaalayaashaada sida uga mid noqon karaa wuxuu uga duray cirbad markii aan suuxana meesha isaga cararay wuxuu ku dhahaa ninkaas waxa ku dhacay ma aqaanin laakiin isagu wuxuu ka mid ahay shaqaalayaashii midka ugu fiican markii uu u sheegana inay isguursan doonaan asbuuc kadib hadalkaas si kaliya laabay ugu faraxday asbuucii wuu dhamaaday midkii shaqaalahayna waa kana isagoo laamiga ku iibinaya jalaato midiina waatana iyadoo isku diyaarisay injineerka arooskiisa war
waraaqadan ay akhrineedana waa waraaqadii ay ku dalbanaysay inay ninkeeda iska furayso midkan abukaataha u soo diyaariyay maadaama oo asbuucii dhammaadana midkii injineerka oo ay ballameen fariimo badan ay u dirta laakiin muusan uga soo jawaabin intaas keliya maahane marar badan ay xataa taleefka ka wacday laakiin ma ka qaban isla markaasna meesha waxaa soo gaaraya midkii injineerka oo kursiga curyaanka lagu wada weliba waxaa wada iyada ninkeeda markii ay weydiiday waxa dhacay wuxuu ku dhahaa ninkan waa ninkii aad mustaqbalka guursan lahayd hadda wuxuu galay shil gaari hadda kadib lugihiisa kuma istaagi karo maadaama aad jecleedna aniga waa kuu keenay iyaduna waa tan waxay taagan tahay aniga marnamo lagama yaabo inaad guursado nin curyaan oo kursi ku socdo sababta aan adiga kaaga tiga mataqaanaa waxa waaye maadaama aad tahay shaqaale yar oo aadan isii karin noloshaan aniga u qalmo haddana ma laga yaabo inaad guursado midkan curyaanka kursiga ku socdo ugu dambeyn injineerku waa soo istaagay markii ay saaxiibadiin fardi baxday haddeer waxay taagan tahay idinka ciyaarta iga daaya qorshaha wadatiin maxaa waaye wuxuu ku dhahaa ninkan wax walba uu ii sheegay markii aan isbitaalka ku wada sugnayn isagoo sii baxayaan waxaan weydiiyey meesha oo u socdo waxa uu ii sheegay adigu inaad khiyaanooley tahay sidoo kalena isaga xaaskiisa aad tahay anigana maadaama uusan shaki hore igu jirin arrintaas madaxiigu waa qaada waaye intaasna wuxuu iigu daray inaad adigu rabtid inaad isaga ka tagto maadaama uu gacmihiisa shilkii wax ka soo gaareen wuxuu ii siiyey talo ah haddii aan rabo inaan adiga ku guursado inaan marka koowaad tijaabo kugu sameeyo maadaama uu ninkeedu mar hore dacwo cunugeeda ku saabsan ka gudbiyay iyada waa la qabanaa ugu dambeyn injineerku midkan wuxuu ku dhahaa masiiba iga badbaadisa marka waa in abaalkaaga ku gudaa waxaan rabaa inaad bixiyo wax walba oo gacmahaaga ku baxaya si lagugu daaweeyo muuqaalkun intaas ku ekaaya haddaa halkaasuu garta leegnoosa